waxaa ugu jira qof kastoo ilkihiisa daryeelin oo nadaafadiisa aad ay u liidato. waxaa kamid ah dadka oo qaadka isticmaalo oo balwada leh oo kale ayagana waxa way susceptible u yihiin oo u nugul yihiin. caruurta yar yar laftigoodii sidoo kale yani iyo maamooyinka uurka leh waxa way xilligaas maamad markay uurka leedahay waxa ku imaanayaan hormonal change. waxaa keena waxyaalo badan ay kamid tahay qofka nadaafadiisa ee liidato oo ku baraarugsaneen yani nadaafada afka iyo muhiimada ay leedahay. number 2 macaanka tirada badan ayadana way keenaysaa oo waxa way qofka markuu macaan badan isticmaalo waxyaalaha uu keeni kara kamid tahay. marka qaar dhaxal way noqotaa oo qofka soo nadaafadiisa ku dadaalay macaan badan isticmaalin oo yani regular dental examination ama check-up soo sameeyay oo wuxuu la kulmi karaa suustaasna marka waxa loo leexin karaa dhaxal ahaan inay noqoto. marka suuska sidee la isaga ilaalin karaa? waxaa la isaga ilaalin karaa qofka inuu sameeyo maalinkiiba 2 jeer inuu cadeysto. sidoo kale inuu isticmaalo dental flossing waa dun loo isticmaalo ilkaha dhexdooda sida qofka markuu brushka ama cadiga isticmaalayo ma gaari karo waxa waa meelo qaar oo xaajir uu ka soo tagi karo oo brushkaas ama cadigaas loo isticmaali karin. duntaas waxay ka saacideysaa cunadii misharaaga meesha ku har inay ka soo nadiifiso. number 3 waxa waa inuu qofka cunadiisa oo saxo oo waxa waa wax walba macaan inuu ka fogaado. number 4 daawada cadiga la isticmaalayo laftigeeda waa inay ahaataa daawo ku jirto fluoride. fluoride ka horta waxa waaye maadadaas maada aad u fiican waaye oo ilkay xoojisaa. sidoo kale suuska had mawduuca ka hadlayno way u fiican tahay oo suuska qofku yani ka hortagay ilkaha dadka qaar waxa arkaysa ayagoo nadaafadooda hagaajinayaan oo ilkaha iska dildilaaca iska burburaya oo kaleeto. daawadaas inta badan way xadidantahay xadigeedo bata dhibaato keenay xadigeedo yaraadan dhibaato keenay. xadigeedo bata oo kaleeto waxay keenaysaa dadka ilkaha oo dabarka ama gisirka oo kaleeto ilkaha dadka leh waa daawo yani maadadaas ku badan hadii ay yaraatane ilkaha way burburayaan oo si sabab la'aan yani maadadaas xadigeeda in lagu isticmaalo qurux badan. inta badan waxay ku jirtaa daawooyinka lagu cadeysto biyaha way ku jiraan dadka qaarna waa loo sameeyaa waxa way xarumaha oo caafimaadka ilkaha waa laga helaa. waxa ugu jira qof kastoo ilkihiisa daryeelin oo nadaafadiisa aad ay u liidato. waxaa kamid ah dadka oo qaadka isticmaalo oo balwada leh oo kale ayagana waxa way susceptible u yihiin oo u nugul yihiin. caruurta yar yar laftigoodii sidoo kale yani iyo maamooyinka uurka leh waxa way xilligaas maamad markay uurka leedahay waxa ku imaanayaan hormonal change. dabciyan isbedelaysaa oo waxa way wax ay isticmaali jirin sida macaanka kale hadii awal loof ay ku aheen oo aad isticmaali jirin qofkina macaanka zaid u isticmaal hadii ay noqoto suuska u imaanaya ama nadaafadii oo awal si fiican u sameyn jiray inuu ka caajisaa dhici karto maamadaas ay ka caajistay yani way keenayaan afartaas qof oo nugul yihiin suuska ugu badan xanuunadaas oo kaleeto inuu qofka waxa way inta badan markay ilkaha iyo goosaha loo fiirine goosaha ugu badan markii la kala qaado taasna waxa keeni karto cunada markii la cuno xubaan cunno kasto afkaaga gelisid waxay ka rabtaa calaalin ma inuu rugtid oo kaleeto. goosaha aslan saawad ognahay salkooda meeshii wax lagu ruugayo oo kaleeto waxay leeyihiin meelo oo raf ah oo cunadii qabsan karto oo burushka taa markaa ku cadeysanaysid ee kugu adagta ilaa ma waqti inaad siisid ma ogiyay qaab boobsiisa ku cadeysana hadii dhahdid cunada si sahlan meesha ugu soo baxayso. cunadaas oo meesha ku hartay bacteria ku dhalanayso bacteria markay u fududaanaysa inay falgal ay sameyso saasoo suuska ku dhashanaa saasoo yiridku ku dhashanaa wax walba meesha kaaga iman karaan. daawooyinka ilkaha lagu cadeysto labada boort way fiican yihiin cadiga iyo brushkaba laakiin waxa waaye aslan intii brush la barin cadiga la isticmaali jir anaga ahaan waxa waaye mar walba waxa qaladka iman kara weyga adiga u cadeysanaysid ee ku xirnaan karta inta badan brushka iyo cadiga qaabka aad u isticmaashid ee ku xirnaanay. daawooyin ahaan daawo kasta waxa waaye marba hadii ku jirto fluoride maadada daaya ashayga hor u soo sharxay way fiican tahay hadii ka maqan tahay isaga fogow hadii daawada cadeysanaysid iska fiiri fluoride ku qoran hadii fluoride ku qoran tahay daawadaas ma sha Allah waxa waaye aad u fiican tahay waxtarkeedii.